kulan wacan daawada meel walbo aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaal kale waa films oo hadaanu kale kusoo gudbiya maqaalo ugu dambeeya ee la xiriira arrimaha Bollywoodka. fadlan haddaad ku cusubtahay janaal kale waa films subscribe inoo saar. maqaalkan maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xidigada Bollywoodka ay dhalay halyeeyada Bollywoodka iyo mushaarkooda koowaad ay ku qaateen filimkooda koowaad oo aan maqaal kan ku jeexi doono. inkastoo ay lacag haystaan haddana ay dhaleen halyeey Bollywood waxay kala Bollywoodka u soo galeen in lacag ka sameeyaan. liiskan ayaa waxaa ku jira Varun Dhawan, Alia Bhatt iyo Sara Ali Khan oo dhammaan ay India cinema ku soo galeen inay dhaleen lagu cadaa jilayaal. aan u dhaadhacno maqaalkan maanta aan ku soo qaadanayno jilayaasha Bollywoodka iyo mushaarkooda koowaad lacagta ay faraqa ku shubteen. liiska koowaad waxaa ku jirta Alia Bhatt, waa gabadha uu dhalay Mahesh Bhatt. doorkeeda Shanaya ee filimka Student of the Year waxay ku qaadatay 1 crore. liiska labaad waa Varun Dhawan, wuxuu ku soo caanbaxay filimka Student of the Year wuxuuna doorkaas ku qaatay 8 crore. qofka saddexaad liiska waa Sara Ali Khan, waxay ku soo caanbaxday filimka Kadernaag waxayna mushaar ahaan u qaadatay 50 lakh. qofka afraad waa Janvi Kapoor, waa gabadha ay dhashay halyeeyada Shri Devi waxayna ka soo muuqatay filimka koowaad ee Dhadak iyadoo ku qaadatay 50 lakh. qofka shanaad ee liiskan waa Warina Hussain, waxay ku soo caanbaxday filimka Love Yatri waxayna ku qaadatay 50 lakh. qofka lixaad ee liiskan waa Karan Deol, waa wiilka uu dhalay Sunny Deol waxaana awoow u ah Dharmendra. wuxuu ku soo caanbaxay filimka Balbal Dil Ki Baas wuxuuna ku qaatay 1 crore. qofka toddobaad waa Mustafa Burmavala, waa wiilka uu dhalay directorka Abbas Mastana wuxuu ku soo caanbaxay filimka Machine wuxuuna ku qaatay 30 lakh. liiska sideedaad waa Sonam Kapoor, waa gabadha uu dhalay Anil Kapoor. waxay shaqadeeda ka soo bilowday inay noqoto director caawiye waxaana bishii qaadan jirtay 300 rubi. inta ayaan ku soo xiraynaa liiska warbixinta aan kaga hadlaynay xidigada ay dhaleen halyeeyada Bollywoodka iyo filmadooda koowaad mushaarka ay ku qaateen. haddii aad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada.